muddo ayaa kusoo guda jirtay fidinta dacwada diinta islaamka oo goobo kala duwan iyo dad kala duwanba aad la kulmaysay oo aad ugu yeeraysay diinta islaamka inay soo galaan muddadii aad ku guda jirtay oo ilaa haatan aa wado weli fidinta diinta islaamka rabbi ajra xasanaad ha kaa siiye koobaha aad tagtay iyo dadka aad la kulantay waxyaabo oo aad inooga sheekeyn karto ma jira oo la yaab kugu noqday ama aad la kulantay oo aad ilaa hadda maskaxdaada ka guuxay subxaanallah jazakallahu khayran yani waxyaalaha aan la kulmay maaha wax maalin iyo laba iyo saddex midna lagu soo koobi karo runtii yani dadku islaamka waxyaalaha ay ka rumaysnaayeen iyo waxyaalaha ay hadda maanta ay ka rumaysan yihiin iyo booshinada ay kala joogaan iyo xaaladahooda ilaahay subxaanahu wa tacaala baa koobi kara runtii arrintaas haddaan hadda guda galo taymka inaga dhacaya laakiin qiso walaal Soomaaliyeed ku dhacday ayuun baan rabaa insha Allah taala ummadda Soomaaliyeed uga sheekeeyo si ruux kasta oo dibadda banaanka wadanka gudaheena banaanka wadankeena ka jooga oo qurbaha jooga oo u dareemo mas'uuliyadda dadka uu la nool yahay in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kala xisaabtamayo diintii uu haystay ee macaanka badnayd ee foofuriga ku soo gashay hal santi uusan ka bixin isaga iyo waalidkiis iyo qaraabadiisa midna in ay gaarsiiyaan ummadda la nool ee aan diintaas haysan ay gaarsiiyaan waana waa mid waajib inagu ah laakiin bal qisadan yar dhageysta ruux walbana insha Allah taala xilliga uu dhageysto xilliga ku xiga insha Allah taala actionka uu ka sameyn lahaa isaga un bay u taala biidnillaahi taala laakiin aan soo gudbino ayuun baa nasaaran walaal Soomaaliya ayaa meelahan tuulooyinka ay dadkeenu ku leeyihiin dukaamo yar yar oo ay bariiska yani luqmadda ka raadiyaan nin walaal ayaa wax u shaqeyn jirtay gabar dhalinyaro oo iskuulkii iska doob galaysay inay shaqaysato ku tala gashay reerkooda daraadiis gabadhii muddo u shaqeynaysay hal sano ah walaalkii halkii sano markay u shaqeynaysay mar walba waxay aragtaa ninkan tukanaya ninkan wanaagsan dhaqankiisa wanaagsan waxa weeye hawlo aad u wanaagsan bay ka aragtay islaamkii baa walaalku daahirsaday salaadiisa maxaan ku raada soomkiisa maxaan ku raada nidaamyo fara badan ay ku aragtay walaashii waxay tiri niyow war diintan u baahnay walaal diintan ii sheeg walaalku aad uga baraarugin wuxuu yiri diintan faraha ka qaade shaqayso dadkeena waxyaalaha cajiibka ay ku leeyihiin kitaabkiiba halkan u saaran musalla meeshan u yaala qofku wuxuu leeyahay markuu shaqaaluhu u soo galo kitaabkan waa baybalka nagi ma taaban kartid gacantaadu yeeshan taaban meeshan ku tukado weeye ha taaban hatta tartirin ka leexo ma garanaysaa gabadhii sidii uu ku tarbiyeeyay kitaabka ma qaado ma taabato meeshaas ma tirtirto muddo hal sano markay la shaqeynaysay ayay gabadhii walaalkiis dukaankiiba iska gaday uu ka tagay meeshii isagoo hal shay hal weer xitaa aan diinta uga sheegin mar walbana ay ku celcelin jirtay diintan aan u baahanahay sidan aad u tukanaysid baan aad u jecelahay honestigaagaan aad u jecelahay salaadaada iyo soonkaagaan aad u danaynaya walaalow diintan ii sheeg walaalkii dukaankii buu gaday wuu ka tegey maruu 4 bilood ka maqan yahay mise 3 bilood xilli uu walaalku ku sheegay ayuunbaa habeenada ka mid ah uu seexday gabadhii baa soo hor istaagtay waxay tiri niyahow aniga waa dhintay cadaab baana igu socda waa la cadaabayaa diintaadii aan ku oran jiray maxaan ku raahdaa ii sheeg waxaad u raaci weyday baa lagu cadaabayaa diintaas arrinkaasna adaa mas'uuliyaddeeda iska leh waxaana sugayaa insha Allahu tacaala inta aad ka soo dhimanaysid oo aad iga imanaysid in bedelkayga aad gashid baan rajaynayaa insha Allahu tacaala anigana ilaahay iga saaro cadaabkan haddaan ku jiro walaalkii wuu soo baraarugay aad buu u naxay xaaladii baa fariisa ka booday albaar buu ismadaaliyay dibadda uga baxay dukaankii wuu soo noqday inuu seexdo isku dayay gabadhii baa hortaagan muddo 5 cisho markii ninkii hurdo laga waayay harsi laga waayay wuxuu yiri kursi baan ku fadhiistaa bal inaan yar jeebsado iyadii bay hortaagan hadalkii dad laftigiisa bay ilaahay hadana kadib wuxuu yiri waan cararay dukaankii nin kale uga tagay inaan gabadhii raadiyay igu noqoto dukaankii meeshaan ka soo gaday ayuun baan tagay gabadha gurigeedii baan aqaanay hooyadeeda baan aqaanay walaalaheeda baan aqaanay dukaankii gabadhii kama shaqaysaa la yiri waan tagay bil kama shaqayn baa la yiri gurigeedii baan tagay hooyadeeda waxay tiri gabadhii bil bay mootanta waa dhimatay gabadhaas ninkii isagoo qaraacan oo soo noqday dukaankiisii uu yimi hurdo waa laga waayay dhakhtar buu tagay quraan baa la saaray meel kasta la geeyay kadib dawaa la siiyaa oo ku seexo
waa tabnigi baa ku taagan muddo isagoo ninkii sidaasa inuu waasho wax yar isagoo iga dhimantaa lagu celiyo wadankii dukaankii kalena wuu iska gaday shakhsi kasta oo marka muslim ah oo dadka afkan ku hadla ah runtii caalamka afartiisa koona inuu ku maxaan ku radaa faafsannahay dadka gaalada ah ayaynu aad ugu dhex jiraa ruux waliba saaxiib buu leeyahay ruux waliba maxaan ku idhahdaa dad la shaqeeyuu leeyahay ruux waliba shaqaaluu leeyahay waxaan idinka digayaa oo in badan idinku celcelinayaa arrintaas oo kale waynagu iman doontaa wayna dhici doontaa garantii weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa waddankeeni laynooga soo saaray oo bannaanka laynoo keenay diintan islaamka in aynu fidinno inaynu diintan islaamka gudbinno haddii aynu gudbin weyno innagaa mid kale laynoo soo gudbinaya innagaa diin kale layna qaadsiinaya taasi haddaysan dhicin tanaa kugu imanaysa walaalka ku dhacday marka shakhsi kasta waxaan uga digayaa oo walaal soomaaliyeed ah ama muslim kale ah in haddii uu garanayo ruux gaal ah inuu gaarsiiyo kalimatu laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam maanta aad baad u mahadsan tahay sheekh asad maxamed qodax oo runtii qisadaasi inala wadaagayay waxaan filayaa dabcan daawadayaal fara badan ee si toos ah barnaamijka ugala socda telefishinka Somali Cable iyo waliba barta Facebook aynu ku leenahay ee ah Somali Cable TV aad ay u daawadeen isla markaana ay share gareyn doonaan oo qof kasta oo muslim ah markaa ay gaari doonto galay aad baad u mahadsan tahay